بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى وحن كهل الدونة امتحانك مادة بيولوجيا سنة دكسيتك لبكون تضبيط طبعا سديدية طبعا أما سنة كلا بكون سديدية طبعا لقاضي وحن كجرني قيبت أهد multiple choice questions سؤالها جواب جلينتا وحن سوق هذا ناي قيب خورة وحن كبلا بين أمر كمان تسؤال شكوية طبعاً كترسن سؤالها MCQ أو multiple choice questions سؤال شكوبات وحنا لو يديي which of the following كوا صوص على كيبا is a female part قيبت female كأمر نديجة of a flower أبحة وبحواتي أن صبرني وحنا لقرأ أمر كأفرتان قيب ناقرن بديسل أنثر بستل يا stamen قيبت female part جوابت الصحة waxay noqonaysaa xarafka C oo bistil waxa kale loo yaqaanana bistilka gynosium magacaasna waa la yiraahdaa marka waa isla macno marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa bistil su'aasha 12aad a partial food web is shown aside dhanka waxa ka muuqda ayaa lagu yiri habdhis cunto oo noolayaasha qaabka isugu xigeen صورك معنا قرين لكن سؤال سوق هذا الني حال ويدي مركا which of the following كوا صوص على كيبا will most likely occur كوا صوص على كيبا دعي دونه if the gross population decrease حد يشمبر كلي هذا gross كهو صدع وكوي ماذا سيد عادي وحنا قلنا food web كا وحوك سميسان يصل كأوه سيمر والبا وبروديوسر وحاكو حاجة primary consumer استعمالها كوبات waxaa ku xiga isticmaalaha labaad oo secondary consumer waxaa ku sii xiga tertiary ugu dambeeyna quaternary marka qaabka sawirka uu sameeysan yahay markaan fiirino shimbirkan liiraada growska wuxuu matalayaa secondary producer ayuu matalayaa sidaa darteed marka hadii isaga hoos u dhac uu ku yimaado maxaa dhici doono maadaama marka secondary consumer uu yahay isaga primary ka hooseeyay uu isticmaali jiray ayaa isbedel ku imaanaya si adarteed jawaabta saxda waxay noqonaysaa the butterfly population will increase waxa bada doono xadiga butterfly-ga ama balanbaalista sababtoo shimbirkani wuxuu cuni jiray butterfly-ga isaga ahaa primary consumer ayuu ahaa kana wuxuu ahaa secondary consumer si adarteed marka hadii kan uu yaraado kan uu bada doonaa butterfly population will increase kuwa kala saameyn kuma laha oo xiriir ba lama lahayn shimbirka la yiraahdo growska saameyn lama lahayn su'aasha 13aad a saynisyahan waa qofka barta cilmiga sayniska ayaa wantis wuxuu rabaa hal to artificially pollinate a flower inuu ubax bacrimiyo sida darteed in what part qaybtee of a typical flower ubax would she or he find uu ka helayaa the pollen grain ka xagee laga helayaa pollen grain ka intaan waxa laga helaa anthar qaybta la yiraahdo sida darteed jawaabteena waxay noqonaysaa C oo anthar ay jawaabtu noo noqonaysaa su'aasha xigta 14 the simple form habka iska sahlan asexual reproduction ka taranka aan jinsiga ahayn asexual reproduction waxa la midka aan u baahnayn lab iyo dhadig uma baahna involves waxa ku lug lahaa splitting kala go'id of a parent cell-ki parentiga ahaa waalidka ahaa ama asalka ahaa ayaa wuxuu u kala jabayaa into two daughter cells laba cell ama laba unug oo walaalo haddaba habkaas kee waay maxaana la yiri parent cell ayaa wuxuu kala jabayaa two daughter cells labo sida darteed intaan waxa jawaabta saxda ay noqonaysaa binary fission qaybsanka labaaleyda binary fission ay badana ay ku tarmaan bakteeriyada iyo protozoaha iyo ay ku tarmaan isaga waxa lagu yaqaanaa in cellki laba uu u qaybsamo kadibna laba maxaa la yiraahdaa unug ay soo baxaan su'aashan iyo tobanaad a student is preparing arday ayaa waxa loo diyaarinayaa turan inuu ordo
ina school track competition tartan ka socda iskuulka ayaa waxa la rabaa inuu ka qayb qaato ardagani for the quickest source-ga ugu dhaqsida badan of energy ee tamar laga helayo the student should eat wa inuu cunaa a food cunto contains ay ku jirto a high percentage iyo boqolay aad u badan of what kee waa marka ma carbohydrate ma fada ma proteina ma sodium jawaabta saxda waxay noqonaysaa iyadana carbohydrate sababta carbohydrate aan u qaadana waa maxay su'aasha waxa ku jirta quickest source ugu dhaqsida badan haddii marka la yiraahdo energy kan ugu dhaqsi badan meesha laga helo waa carbohydrate laakiin quickest hadaan la dhihi lahayn kee energy ugu badan hadii la dhihi lahaa fat ay noqon lahayd laakiin sababta kan carbohydrate loo doorto waa maxay energy-ga ugu dhaqsida badan midka laga helayo sida darteed waa carbohydrate 1 gram carbohydrate-na waxa laga helaa 4 calorie oo energy ah su'aasha marka 15aad waa inta su'aasha 16aad waxaana la weydiiyay which of the following observable characteristics astaamaha soo socdo kuweeba ah mideeba ah continuous variation astaan sii socon karto astaamaha waa tii loo qaybinaya laba nooc continuous iyo discontinuous marka astaamahani waxay isugu jiraan continuous iyo discontinuous haddaba waxaana laga rabaa midda ah teeba continuous variation ah jawaabteena saxda waxay noqonaysaa su'aasha C xarafka C ay noqonaysaa human body weight kaas ayaa wuxuu yahay continuous variation mid sii socon karta inta kale laakiin uu isbedbedelayaan su'aasha 17aad waxaana la weydiiyay haddii if a heterozygous tall man nin dheer oo ah heterozygous kala jaad ah macnaheedu labada alleel aysan isku mid ahaynin married haddii uu guursado a homozygous short woman haweeney gaaban oo ah homozygous isku jaad ah probability-ga suuragalnimada canuga dhalanaya uu noqon doono short waa imisa waxaan samaynaynaa marka badgriga ayaan sawiraynaa bal qaabka uu samaysan yahay halkan ayaan ku sawiraynaa markaan ka sawirana waxaan marsiinaynaa laba xariiq ayaan sidaan u marsiinaynaa laba kalena qaabkan ayaan u marsiinaynaa waxaana la siiyay waa maxay waa nin oo ah heterozygous haddii uu yahay marka waxaan u qaadanaynaa t capital iyo t small ah hooyada waxaa la yiri waa short oo homozygous ah sidaa darteed waxay noqonaysaa laba t oo small ah haddii aan isku dhufano marka t iyo t hadday isu tagaan waxaa imaanaya t capital iyo t small sidoo kale t-dan iyo t-da isu gey t capital iyo t small ka uu dhamaaday kan uu imaaw t iyo t waa laba t oo small ah t iyo t kale waa laba t oo iyagana ah small sidaa darteed marka waxaan xisaabinaynaa imisa short ah imisa tall ah labadan kore waa maxay maadaama t capital ay ku jirto labadaani waa tall oo ah heterozygous labadaanna waa maxay homozygous waaye oo short ah marka laba iyo labo macnaheedu boqolkiiba 50 yaa ah marka jawaabtu waxay noqonaysaa a half macnaheedu 50%. The human body jirka bini'aadamka regularly sheds uu soo daataa oo waxbaa ka maxaa la ka baaba'o jirki and replaces wuxuu bedelaa markaas it is skin cells maqaarkan mar walba maxaa la waa la cusboonaysiiyaa kii hore saarnaa meesha uu ka baaba'aya shedding ayuu samaynayaa mid cusub ayaa lagu bedelayaa hadaba which of the following processyada soo socda keeba is directly responsible mas'uul ka ah for replacing in la bedelo oo nooc cusub la soo saaro these cells unugyadan afar option ana la siiyay optionka saxda marka wuxuu noqonayaa mitosis mar walba waxa dhaco mitosis oo ah cells cusub in la soo saaro si jirkii koritaan uu u sameeyo
okay su'aasha 19aad waxaana la yiri the diagram below sawirka hoos ka muuqda shows wuxuu muujinayaa a proportion qayb of the anatomy qayb ka tirsan anatomiga iyo qaab dhismeedka human arm gacantii bini aadamka sawirka meesha noogu yaala waa human arm haddaba which letter xarafkee ayaa on the diagram ee sawirka indicates muujinayo a tendon yaa muujinayo tendonna waxaa la yiraahdaa wuxuu isku celiyaa mar walba lafta iyo maxaa la yiraahdaa muruqa ayuu isku celiyaa sawirka markaan fiirina marka waxaa ka muuqda tendon oo ku muujisan xarafka z ayaa ku muujisan sidaa darteed jawaabtayna waxay noqonaysaa xarafka d sababtoo tendonka isagaa qaabilsan in la isku celiyo masalki muruqi iyo maxaa la yiraahdaa lafti in la isku celiyo su'aasha 20aad which of the following kuwa soo socda keeba describes qeexayo ama tilmaamayo the function of DNA shaqadii DNA ay qaban jirtay dhowr shaqo ayaa meesha ku taalo laakiin tee ka ah DNA jawaabta saxda ah waxay tahay waa encoding genetic information inay soo saarto oo soo code garayso genetic information sababta kuwan kale shaqo kuma laha kan enzyme iskale ka maxaa la yiraahdaa waa chemical bond kan ugu hooseeyna shaqo kuma laha sidaa darteed jawaabtu waxay noqonaysaa encoding genetic information inay soo code garayso ay soo saarto walxii qaabilsanaa dhaxalka in ay soo saarto inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtii ahayd marka multiple choice question su'aalihii goobagelinta imtixaankii 2017 18